بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Bio Academy. kusoo dhawaada Bio Academy. إن شاء الله تعالى بيتك على شهر قريو على داوضو لاق على سارو ديري قلبي لأنه غنيسة إن شاء الله تعالى. عشر كيني لبعض يا مانتو بلابنا إن شاء الله تعالى مادة biology lesson 2 وعن قدو جرين دبتر كيني لبعض إمي سوها endocrine system. habdhis qanjireedka marinka aan lahayn ayaan gudu jirnay ayaan soo qaadanay wax yar aan dul marno. habdhis qanjireedka marinka aan lahayn waxaa loo yaqaanaa qanjirada marinka aan lahayn kuwaasoo dheecaanka usoo daaya si tubalaan usoo daaya ama dhagtilas usoo daaya daaragti ugu soo shubo ama si toosan ugu soo shubo qolka dhiigga ayaa loo yaqaanaa endocrine system ayaa loo yaqaanaa ama endocrine glands ayaa loo yaqaanaa marka. Okay, endocrine glands waxaa soo baranay inuu ka koobnahay ama types uu lahaa ama classification uu lahaa waa la qaybinayay waxaa lagu magacaabo marka laga fiiriyo hormoneska marka laga fiiriyo solubility-ga ay yiraahdo xaddiga milaanshaha iyo marka laga fiiriyo waxa la yiraahdo dufan marka laga fiiriyo ama waxa la yiraahdo lipids marka laga fiiriyo ayaa loo qaybinayay. marka dufanta xigta laga fiiriyo waxaa loo qaybinayay steroid iyo non steroid mid dufan leh iyo mid aan dufan lahayn. marka laga fiiriyo xagga solubility-ga xagga xaddiga milaanshaha waxaa loo qaybiyaa iyadana laba loo qaybiyaa waxaa loo qaybinayaa lipophilic or hydrophilic hormones. lipophilic hormones oo ah hormoneska ku milma dufanta ku milma iyo hydrophilic hormones oo ah hormoneska biyaha ku milma ayaa loo yaqaanaa. marka labadaas loo qaybinay qaybta hore waan soo qaadanay insha Allah taala qaybta labaad aan qaadanayna oo ah lipophilic or hydrophilic hormones ayaan qaadan doonaa insha Allah taala. dhammaan waxaa la yiraahdaa xaaladda in which hormones dheecaanadu transport ay ku gudbaan and interact ay ku falgalaan with their targets. waxaa la yiraahdaa targetkoodka ama bartilmaameedkooda differ waa kuwa kala gedisan depending on marka loo fiiriyo ama ay ku tirsan their chemical nature dabiici ahaan chemicalska ay ka samaysan yihiin. hormones may be categorized waa loo qaybi karaa asin yihiin lipophilic oo ah non-polar kuwa aan cirif lahayn which kuwaas oo ah fat soluble kuwa dufanta ku milma or ama hydrophilic oo loo yaqaano polar oo ah mid cirif la ah which kuwaas oo water soluble biyaha ku milma. marka laga fiiriyo marka waa chemical nature-ka waxaa loo qaybiyaa hormoneska lipophilic hormones iyo hydrophilic hormones. lipophilic hormones waxa waa hormoneska jecel waxa lagu magacaabo dufanta. hydrophilic hormones waxa yiraahdaa waa hormoneska jecel biyaha jecel loo yaqaan ama biyaha ku milma. okay aan ku bilowno mid koobaad oo ah lipophilic hormoneska dufanta jecel ama ku milma include waxa kamid ah steroid hormones ayaa kamid ah and thyroid hormones ayaa kamid ah hormoneska dhunta ayaa kamid ah iyo steroid hormoneska. most other hormoneska kale ee soo haray badankood hydrophilic waa kuwa biyaha jecel biyaha ku milma. hydrophilic hormones are freely soluble waa kuwa si xor ah ku milma in water in blood biyaha ku milma but laakiin cannot pass through kuma soo maraan the membrane xubka of target cells. membrane-ka ama target cells-ka ama unugga bartilmaameedka waa unuggooda kama soo bixi karaan. okay marka maxaa la sameynaa marka waa yahay they must waxaa waajib ah therefore activate their receptors waa inay active gareeyaan ama ay laga shaqeysiiyo qabtayaasha from kuwaasoo yaala outside banaanka of the cell membrane unugga marka xubka unugga receptorka banaanka yaala waa in laga shaqeysiiyo ama la qabtaa ama gudaha usoo geliyo. marka banaanka marka yimaada hormoneskaas maadaama cell membrane uu ka samaysan yahay dufan fat uu ka samaysan yahay ayaguna ay yihiin waxaa lagu magacaabo hydrophilic ay yihiin kuwa aan lipophilic aan ahayn sidaa darteed aysan usoo gudbi karin. waxaa waajib ah marka selka loo socdo oo la rabo in hormoonkan oo wax ka qabto wuxuu leeyahay waxa lagu magacaabo receptors uu leeyahay. receptorskaas marka banaanka yaala ayaa waxay sameynayaan hormones marka la soo daayo ayaga soo xareynaya gudaha usoo gelinaya marka gudaha ayay usoo gelinaya. in contrast cagsigeed marka lipophilic hormoneska dufanta jecel ku milma travel waa kuwa soo ku gudbaan yiraahdaa in the blood dhiigga attacks ayagoo weeraraya to the support transport protein kala soo dhoofiyey in their lipid soluble kuwaasoo ah kuwa ku milma biyaha marka aan dufanta ku milma. enables waa mid u ogolaanaysa dam iyaga to cross inay maraan ama ay gudbaan cell membrane xub unugga and band inay qabsaan to the intracellular receptorska gudaha ku jira inay qabsadaan. marka kuwan ku yar way ka duwan yihiin kuwan maadaama dufan ay ka samaysan yihiin ayaga wax uma baahna qabtayaal soo xareeya banaanka ka soo xareeya uma baahna sidaa darteed si toos ayay usoo gudbiyaan ay gudaha selka usoo galayaan ayagoo qabsanaya qabtayaasha gudaha ku jira si toos waxa uu la falgalaya. marka laakiin kuwii hore waxay u baahnaayeen waxyaabo gudaha soo galiya u baahnaayeen marka laakiin kuwan uma baahna maadaama dufan ay yihiin cell membrane uu ka samaysan yahay dufan uu ka samaysan yahay.
both labadaba hydrophilic iyo lipophilic waaye types qaybaha of the hormones ay eventually caadiyan destroyed waa la burburiyaa or ama otherwise haddii kale deactivate waa kuwa aan shaqaynayn after their use marka la isticmaalo kabacdi eventually caadiyan being excreted waa la saaraa in bale xamiiti ahaan ayaa loo saaraa or ama urine kaadi ahaan ayaa loo saaraa marka la isticmaalo labadooda waxaa la sameeyaa waxaa loo saaraa kaadi ahaan loo saaraa ama xamiitida ayaa lagu shubaa beerka ayaa saaraa oo bale ahaan ayaa laga dhigaa marka okay feedback mechanism marka waa yahay habka jawaab celinta marka homeostasis waxay dhahay xasiloonida jirka isdibaaradaas waxaa lagu qeexaa stable xasiloonida internal environment deegaan gudeedka endocrine system qanjirada marinka aan lahayn balay way ka ciyaaraan important role door aad muhiim u ah in the maintenance joogteynta of homeostasis xasiloonida jirka because maxaa yeelay hormones waxay regulate waa kuwa maamula the activity howlaha of the cells oo unugyada leeyihiin tissue nudayaasha aan organs xubnaha throughout ayagoo sii maraya dabaali jirka marka to maintain si loo joogto homeostasis xasiloonida jirka feedback mechanism controls waa mid maamulaya hormone secretions hormone la soo daayo feedback mechanism habka jawaab celinta is one waa mid in which taasoo the last stepka ugu dambeeya in the serious events ee dhacdooyinka xiga controls ee ku maamulayaan the first stepka koobaad feedback mechanism habka jawaab celinta can be wuxuu noqon karaa ayraade negative mid negative ah or ama positive mid positive noqon karaa most hormone system badanaa habdhis dheecaaneedku use way isticmaalaan negative feedback ayay isticmaalaan negative feedback muxuu yahay marka the final step waa stepka ugu dambeeya serious events ee dhacdooyinka xiga inhibit waxa waaye lagu joojinayo ama lagu xirayo the initial signal baaqyadii hore in the serious ee taxana ahay an example tusaale waxaa kamid ah negative feedback waxay yiraahdeen regulate levels wuxuu maamulaa heerarka waxaa lagu magacaabaa thyroid hormones qanjir dhoomeedka ayuu maamulaa qanjir dhoomeedka waxaa yirahdaa marka la soo daayo inta badan waxaa amar ka soo bixiso ama soo diiso waxaa lagu magacaabaa markaas bixiso hypothalamus ayaa bixisa hypothalamus marka waxay amar siinaysaa thyroid stimulate hormone ay siinaysaa waxaa lagu magacaabo fariin ay siinaysaa leedahay pituitary gland waa inuu joojiyaa waxaa lagu magacaabo soo deynta hormoonka loo yaqaan thyroid hormone pituitary gland marka waa laba loo qaybiyaa markii doonaa posterior iyo anterior loo qaybiyaa anterior ka ah qaybta hore ayaa laga soo deeyaa marka hore thyroid hormone sidaa darteed marka pituitary gland iyo qanjirka ila thyroid gland asoo hadlaya wuxuu leeyahay waa inay joojisaa soo deynta ay soo deynaysa thyroidinka waa inay joojisaa marka saa ay ku soconaysaa marka joojintaas marka waxa loo yaqaanaa waa negative feedback ayaa loo yaqaanaa marka waa mid inta badan ay isticmaalaan thyroid hormones regulate waxay maamulaysaa cellular metabolic rate xaddiga dheefshiidka through ayadoo sii marayso cellular negative feedback mechanism ayadoo several negative feedback mechanism ayadoo sii marayso habab jawaab celina dhowr ah two show kuwa muujinaya high concentration xooganaanta sare oo thyroid hormone ayay muujinayaan inhibit lagu joojinayo the hypothalamus waxaa yirahdaa hypothalamuska from release in laga soo deynayo tropin waxaa lagu magacaabaa tropin hormone loo yaqaano and the interior pituitary gland from releasing asoo soo deynayo TSF oo loo yaqaano follicle stimulating hormone soo deynayo marka okay positive feedback maxay rabtaa when hormonada are regulated ay maamulaan by positive feedback markay yihiin maxaa dhacaya release waa la soo deeyaa essential hormones hore ayaa initial hormones hore ayaa la soo deeyaa stimulate waa la kicinayaa release in la soo daayo or ama production in la soo saar other hormonada kale or substances waxyaabo kale marka positive wax kale maan la soo qaabilsan yahay in hormoneskii hore la soo daayo ay sii shaqeeyaan sii socdaan shaqada sii wadaan ama kuwa hore in la soo daayo ama waxyaabo kale in la soo daayo qaabilsan yahay marka which stimulate kaasoo kicinaya further releasing in hore waxyaabo dheeraad la soo daayo of initial hormones hormoneski hore for example tusaale increase marka la ziyaadiyo estrogen concentration marka la ziyaadiyo stimulate oo kicinaya certain luteinizing hormone secretion luteinizing hormone ka yiraahdo ayuu wuxuu siinayaa inuu sii daayo asigana waxa lagu magacaabo dheecaan sii daayo waa barrier of evolution waa barrier of evolution ah nidaaminta ama waxa waaye taxliilinta ama soo deynta ama nidaaminta evolutionka ama waxaan sameynta marka sameynay in la soo daayo qaabilsan marka the difference waxay tahay farqiga between u dhaxeeya negative feedback and positive feedback kaas farqiga u dhaxeeya muxuu noqonaa marka kan positive wuxuu qaabilsan yahay in hormoonada hore la soo daayo kuwii hore ay sii socdaan waxba ay waxa waa la joojin ayuu qaabilsan yahay kii hore wuxuu qaabilsan negative wuxuu qaabilsan in la xadido la joojiyo
waxyaabaha socdo tirada badan in la joojiyo ayuu qaabilsan marka labada marka waxaa fiican kan daba kan hore fiican oo ah negative-ka ayaa fiican negative-ka ayaa fiican maxay hormones hadii over ay noqdaan jirka ay dhibaato ku keeni karaan marka antagonistic hormoneska lidiga isku ah ama cagsi isku ah ama isxasda saa u taqaanid cagsi isku ah lid isku ah ama isxasda hormoneska waxaa la yidhahdaa waa laba hormone labadaba waxay qabtaan shaqo wanaagsan laakiin shaqooyinkaas waa shaqooyin iska soo horjeeda ayaa la yidhahdaa marka okay warki doonaa number of hormones tiro badan hormones ah work together jira ayagoo shaqeeyaan imbeer ayagoo ah joogjooga to regulate si maamulaan levels herarka of critical substance waxyaabaha aadka u adag marka these hormones are referred to as waxa loo qeexaa antagonistic hormoneska lidiga isku ah ama cagsiga isku ah because maxaa yeelay their actions ficilladooda have opposite effective waxay leeyihiin waxyeelo iska soo horjeeda ay leeyihiin waxaa kamid ah tusaalaha kasoo glucagon iyo insulin hormones ayaa kamid ah examples waa tusaalooyin of antagonistic hormones ay yihiin marka way okay marka ninka la yiraahdo glucagon iyo insulin maxay cagsi isku yihiin maxay iska hor imaanayaan shaqooyinka qabtaan maxay yihiin glucagon waxaa la yiraahdaa waa hormoonka qaabilsan in sokorta dhiigga lagu shubo sokor dhiigga in sokor lagu daro ayuu qaabilsan yahay insulin waxaan naqaanaa in sokorta dhiigga ka yareeyo marka hoos ayuu dhigaa labadu waxay qabtaan shaqo wanaagsan oo ah kana sokorta ayuu dhiigga ku shubaa blood sugar uu qaabilsan yahay kana waxa way reduce sugar uu qaabilsan yahay sokorta in laga yareeyo sokorta haddii badato marka waa dhibaato sidaa darteed haddii yaraatana waa dhibaato marka waxay ku fiican tahay normal marka kana waxaa qaabilsan yahay sokorta in dhiigga lagu shubo kana waxaa qaabilsan yahay sokorta in dhiigga laga yareeyo marka labadu waxay qabtaan shaqo wanaagsan laakiin shaqooyinkaas shaqooyin oo iska soo horjeeda marka endocrine glands qanjirada marinka aan lahayn and their hormones iyo dheecaanada ay soo daayaan endocrine glands waxay leedahay awal glands waa qanjirada secrete kuwaas soo daaya hormones dheecaan soo daaya maxay marka way aan tirino waa kuwa halka inuu qolin waxa kamid ah pituitary gland waxa kale kamid ah pituitary gland ayaa kamid ah asha waxa waan qadan tahay waxa la yiraahdaa waa thyroid gland ayaa laga yaqaan qanjiromeedka parathyroid gland waa afarta qanjir ee ku yaala thyroidka adrenal gland waxa kale kamid ah qanjir kiliyeedka ayaa kamid ah labada kiliyood qanjirada saaran ayaa kamid ah pancreas ayaa kamid ah ganaca ayaa kamid ah ovary waxaan sameeyaa ayaa kamid ah lab lidiga testis xiniya ayaa kamid ah labka leeyihiin pineal gland oo ah qanjir maskaxeedka qanjirka ugu yar marka la ama xubinta ugu yar jirka bini'aadamka ayaa loo yaqaanaa maskaxda ayuu ku yaalaa waxa kale kamid ah thymus gland waa qanjirka wadnaha dusha ka saaran intaan waxa loo yaqaanaa endocrine glands aan ku celino waa pituitary gland thyroid gland parathyroid gland adrenal gland pancreas gland ovary gland testis gland pineal gland and thymus gland intaa waxa loo yaqaanaa endocrine glands warka doona waxyaabaha ay qabtaan mid kasta shaqadiisa inkastoo buugga uu soo koobayo oo soo qaadanaya pituitary gland iyo thyroid iyo parathyroid iyo pancreas iyo adrenal buu soo qaadanaya oo ku tagaya ovary uu ku tagaya testis uu ku tagaya pineal uu ku tagaya iyo thymus wuxuu soo qaadanaya kuwa hore qaybaha hore buu soo qaadanaya okay thank you aad iyo aad u mahadsantihiin halkaan inoo joogto insha Allah tacaala midaan qaadan doona waxaan ka bilaabi doonaa pituitary glandiga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wixii aan saxnay min Allah ay ka ahaadeen wixii aan qaladna waxay ka ahaadeen shaydaani ayay ka ahaadeen iyo nafteena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي بانها يو أرضي بانها يو وبحي ودنكانها يو أرضي بانها